bada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay ee diiwaangelinta dadweynaha doorashada qof iyo cod ee Muqdisho. maxkamadda gobolka Galgaduud oo ku dhawaaqday xukunka eedeysanayaal loo haystay dilka hooyo iyo carruurteeda iyadoo ay soo baxayaan eedeymo iyo dhaliilo culus. booliiska caalamiga ah ee Interpol oo Soomaaliya ku wareejiyay nin lagu eedeeyay inuu deegaanada Puntland ka geystay tacadiye jinsi iyo Boosaaso oo lagu qabtay kulan looga hadlaya amniga iyo adeegyada bulshada. dhammaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin waxa ay maanta ku soo bandhigtay xogtii ugu dambeysay ee dadweynaha isku diiwaan geliyay doorashada qof iyo cod ee laga qoray gobolkani Banaadir ama laga diiwaan geliyay isagoo ah gobolka ugu tirada badan kuna dhawaad 1 milyan oo ruuxna laga diiwaan geliyay. guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa sheegay in gobolka Banaadir ay iska diiwaan geliyeen 923 kun oo qof in ka badan oo cod bixiya, taasi oo ah tiradii ugu badnayd ee laga diiwaan geliyay Muqdisho. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Cabdikariin Axmed ayaa waxa uu sheegay in muddo 5 bilood ay socotay diiwaan gelinta isla markaasina magaalada Muqdisho ay ka dhici doonto doorashada bisha soo socota. waxa uu ku baaqay in ururada siyaasadeed loo ogolaado in ay bilaabaan ololayaal doorasho. guddigu waxa uu sidoo kale uu shaaciyay in dad ku dhow ama ka badan 4,000 oo ruux lagu qabtay ama uu ogaaday qalabka diiwaangelinta iyaga oo mar kale isu diiwaangelinaya kuwaasi oo laga saaray liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa tilmaamay in dadkaasi aan la siin doonin kaararka codbixinta iyada oo baaritaano dheeraad ah la wado. waxaan rabaa inaan riboodkii meeshaan lagu soo jeediyey aan rabaa inaan wax yar kor istaago. saa la socotaan waxaa aragteen in dad ay jiraan 2 mar isdiiwaan geliyay oo riboodka ku aragteen percentage dadka isdiiwaan geliyay. haddaan wax yar idin tuso, saa la socotaan systemka isaga ahi waa dadkii la qabtay ayagoo 2 mar isdiiwaan geliyay. systemku wuxuu qabtay intaas number ah. daa macnihiisu waxa waaye dadkaas ma ahan dadka heli doona kaararka codbixinta oo la daabici doono insha Allah taala. marka that was clarification aan rabay inaad ogaataan waa midda koowaad. midda kale walaalayaal saa la socotaan waxaa bilaabatay ololihii doorashada. ololaha doorashadu markuu bilowdo waxaa qasab ah inay heshaan access. waxaan farahayaa kana codsanahayaa gobolka Banaadir inay fududeeyaan waaba fududeyseen aad si fududeysaan ururadu inay si xor ah uga shaqeeyaan. waxaa furan hay'adaha dawladda sida National TV-ga, Radio Muqdisho oo ayaguna idin furan 100%. dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Yuusuf Xoosh oo ka hadlay furitaanka ama soo bandhigitaankan dadweynaha ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya xaqiijinayso dhankeeda in doorashada ay si madax bannaan u dhici doonto oo hufan faragelinna ay ku sameyn dooneen dowladda Soomaaliya. oo qof iyo laba hor istaagi karaan 1 milyan oo Banaadir iska diiwaan gelisay maya ma dhici karo cid beenin ka dhaama jiro. jahada ay aadeen baa la aadaya. qofkii daba gelaya waa isaga, qofkii dhexda ka gelayana waa isaga, qofkii hore ka soconaya waa sida tareenkaas waa dhaqaaq. doorashadan ayaa waxaa la filayaa Soomaaliya inay ka dhacdo dalka bilaha soo socda iyada oo doorashada la qorsheeyay Muqdisho in ay dhacdo bishan dib ay uga dhacday kadib markii dib loo furay diiwaangelinta iyada oo weli Jubbaland, Puntland iyo mucaaradka madasha samata bixintu ay ka hor imaanayaan kana soo horjeedaan nidaamka doorashada ee qof iyo codka. markana gobolka Galgaduud ayaynu aadi doonaa. maxkamadda gobolkaas ayaa waxa ay ku dhawaaqday xukunka eedeysanayaal loo haystay dilka hooyo iyo carruurteeda iyada oo ay soo baxayaan eedeymo kale. maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa waxa ay ku dhawaaqday xukunka rag lagu eedeeyay dilkii naxdinta lahaa ee hooyo iyo 3 gabdhood oo ay dhashay falkaasi oo ka dhacay deegaanada hoostaga maamulka Galmudug iyada oo ay soo baxayaan dhaliilo xooggan oo loo jeediyay garsoorka. gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Xasan Cabdullaahi Cali ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay ku weysay sidoo hadalka u dhigay eedeysanayaashaasi lagu soo eedeeyay dambiyada ah in dilka hooyada iyo 3deeda gabdhood ay ka dambeeyeen, balse ugu dambeyntii ay maxkamaddu ku eedeysay ay ku xukuntay eedeysanayaashaasi 5 sano oo xabsi ah. 2 ka mid ah halka mid kale 3 lagu xukumay kadib dhageysi dacwad oo socday dhowr jeer. warasada marxuumiintii dhimatay aynad
ayna diideen in ay dhaartaan sidaas darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanayaasha kala ah cabdi cismaan cabdulaahi ina safiyo daahir wehliye 23 jir ah ku dhashay godin laba degan warasada marxuumiintii haddaba aynu dib u eegno sidee wax u dhaceen maanta goobjoogayaal ku sugnaa hoolka maxkamadda ayaa sheegay in fadhigii saddexaad ee dhegeysiga uu isu bedelay buuq iyo jahawareer kadib markii ehelada dhibanayaashu ay cara ka muujiyeen xukunka iyo qaabka loo maleynayay ee loo waday dacwadda islamarkaasina ay si cara leh uga baxeen hoolka xaaladda ayaa kasii dartay markii la sheegay in maleeshiyad hubaysan ay gudaha u galeen maxkamadda taasi oo keentay fowdo iyo hakad ku yimid habsami u socodka garmaqalka dhanka kalena maamulka galmudug ayaa beeniyey wararka sheegaya in maxkamaddu amartay in mag la siiyo ehelada hooyada iyo caruurteeda iyada oo wasiirka warfaafinta galmudug cali maxamuud faarax cali seeko uu sheegay in arrintaani ayna sal iyo raad toona lahayn falkan ayaa waxaa loo arkaa mid culays ku keenay amniga iyo madax bannaanida garsoorka ee deegaanada galmudug waxaana la filayaa in hay-adaha amniga iyo cadaaladdu ay tallaabo ka qaadaan cid kasta oo ku lug lahayd rabshadii ka dhacday hoolka maxkamadda ee maanta Soomaaliya maxkamadda ee gobolka galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb waxaa sidoo kale la sheegay in maxkamaddu ficilka iyo sidoo kale waxyaabaha ay sameeysay oo ay ka dhageysanaysay garsoorayaasha ay ahaayeen kuwa loo baahnaa in si hufan loo dhageysto iyada oo ay soo bandhigeen garsoorka ama waa ay soo bandhigeen qareenadu doodo maangal ah kuwaasi oo lagu difaacayay eedeysanayaasha iyo dhibanayaasha waa tahay daawadayaal wixii ku soo kordhaa maxkamadda gobolka galgaduud iyo xukunkeeda iyo waxa ay ka yiraahdaan ehelada iyada oo ehelada dhibanayaasha la siiyey raacfaan muddo 30 maalmood ah wixii ka soo baxay idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena iyo wararkeena kale ee bogga internetka ku leenahay ee hbnonlinetv.com markaana booliiska caalamiga ah ee Interpol ayaa Soomaaliya waxa uu ku soo wareejiyay nin lagu eedeeyay in deegaanada Puntland uu ka geystay tacadiyo jinsi ah xafiiska xeeralyaha guud ee Soomaaliya ayaa waxa uu shaaciyay in la soo qabtay eedeysane lagu magacaabo Jaamac Cabdi Maxamuud kaasi oo lagu eedeeyay fal jinsi kufsi ah duubis iyo faafin muuqaalo aan habboonayn oo uu ka sameeyay gabar Soomaaliyeed falkaasi oo ka dhacay magaalada Qardho ee gobolka Karkar war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xeeralyaha guud ayaa waxa lagu sheegay in baaritaan dheeraad ah kadib la ogaaday in eedeysanuhu uu ku dhumaalaysanaya dalka Rwanda halkaasi oo laga soo qabtay iyada oo la kaashanayo booliiska caalamiga ah ee Interpol eedeysanaha ayaa dalka lagu soo celiyay galabnimadii shalay Sabtida ahayd 18 Oktoobar 2025 waxaana laga soo dejiyay garoonka Muqdisho halka oo si rasmi ah loogu sii wareejiyay xabsiga qaybta baarista dambiyada CID-da ee booliiska Soomaaliya xeeralyaha maxkamadda waa xeeraliye Jaamac Cabdi Maxamuud waxa uu sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo horgeyn doono maxkamadda awood u leh si ay u wajahdo uguna soo oogto dacwadaha loo haysto eedeysanaha isagoo uga mahad celiyay dowladda Rwanda iyo booliiska Soomaaliya gaar ahaan qaybta Interpol doorka muhiimka ay ka qaateen soo qabashada iyo keenista eedeysanaha ee dalka ugu dambeyntiina xafiisku waxa uu uga digay kuna adkeeyay cid kasta in ay ka go'an tahay in ay la dagaalami doonaan dambiyada tacadiyada jinsiga ah iyo ilaalinta sharafta haweenka Soomaaliyeed iyagoo sheegay in cid walba oo dambi ku kacda sidaasi oo kale loola dhaqmi doono ama lagu wajihi doono ugu dambeyntiina wararka Puntland inteena ka bixin Boosaaso ayaa waxa lagu qabtay kulan looga hadlayay amniga iyo adeegyada bulshada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni ayaa maantay magaalada Boosaaso kula shiray gudoomiyaha amniga waa gudiyada amniga iyo horumarinta iyada oo kulankaasi diradda lagu saaray xoojinta amniga daryeelka adeegyada bulshada iyo kor u qaaditaanka isku duubnida hay'adaha amniga ee gobolka Bare madaxweynaha Puntland Saciid Deni ayaa kulanka ka sheegay in maamulkiisu uu wado qorshe ballaaran oo lagu dhimayo qiimaha korontada iyo biyaha ee magaalada Boosaaso kuwaasi oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa ugu qaalisan magaalooyinka ee dalka waxa uu carabka ku adkeeyay in hoos u dhigida qiimaha adeegyadaasi ay qayb ka tahay dadaalada lagu taageerayo shacabka iyo kobcinta dhaqaalaha ee deegaanka kulanka
kadib dhanka amniga ayuu u leexday madaxweynuhu waxaana madaxweynaha iyo mas'uuliyiin kale ay kormeereen dhismaha cusub ee xarunta taliska booliiska gobolka bari ee magaalada Boosaaso waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta taliska ee ciidamada Puntland iyaga oo ka xogsiiyay halka ay marayaan xaaladaha amni ee gobolka iyo shaqada booliiska madaxweyne Deni ayaa booqashada qaybaha kala duwan ee xarumaha cusub ee maamulka Puntland oo dhisayo booqday isagoo oo ku bogaadiyay ciidamada booliiska dadaalada ay ku bixinayaan ilaalinta amniga iyo sugidda kala dambeynta ee bulshada kormeerka madaxweynaha iyo kulankiisa amni ayaa waxa uu ka qayb yahay sida la sheegay qorshaha maamulka Puntland ee lagu xaqiijinayo amniga la dagaalanka dambiyada iyo horumarinta kaabayaasha adeegyada amniga ee gobolka bari waayahay intaas ayaan ku soo gabagabeynaa wararkii Soomaalida caawa HBN oo idinkaga imaanaya stuudiyaha Muqdisho wararkeena waxaad kala socon kartaa boggeena kala duwan Facebook YouTube Twitter iyo Telegram iyo boggeena internetka ee hbnonlinetv.com inta